madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa Nicholas Berlanga oo ah safiirka cusub ee midowga Yurub u soo magacaabay Soomaaliya ka gudoomay warqadihiisa danjirinimo. madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay doorka midowga Yurub ee taageerada Soomaaliya oo uu sheegay in muhiimad ay u leedahay in la sii wado. mas'uuliin u horkacaya wasiirka arrimaha dibadda dalka ayaa goobjoog ka ahaa munaasabada uu safiirkan ku gudbinayay warqadihiisa danjirinimo. danjiraha cusub ee midowga Yurub u soo magacaabay Soomaaliya Nicholas ayaa sheegay in uu ku dadaali doono sidii loo sii xoojin lahaa dadaalada midowga Yurub ee dib u qabashada Soomaaliya. I'm really happy. I'm very excited to have this post. Haantii aad baan ugu faraxsanahay in halkan ka soo muuqdo kaliya uma imaan inaan sii xoojiyo xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo midowga Yurub, balse waa inaan isku dayo inaan sii horumariyo. waad ogtahay midowga Yurub inuu yahay saaxiib bahwadaag la ah Soomaaliya kaas oo ka shaqeeya arrimo badan oo xagga siyaasadda, arrimaha dibadda ee quseeya ammaanka, wada xaajoodida siyaasadda iyo isdhexgalka dhaqaalaha. doorkayguna waa inaan xaqiijiyo suurtagalnimada intaas la horumariyo. waxaan naga go'an inaan horumarino xasiloonida dalkan inagoo ka warqabna dadaaladii lagu bixiyay sanadihii tagay. waxaan jecelahay inaan taageerno sii socoshada dadaaladaas si loo horumariyo loogana miro dhaliyo. midowga Yurub ayaa ka mid ah saaxiibada Soomaaliya ka taageera dhinacyo badan oo ku jiraan dhinaca ammaanka iyo arrimaha bini'aadanimada. Cali Baashi Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, madaxtooyada Soomaaliya.